23 bisha lixaad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warka janalka wararka waxaa ka mid ah madaxtooyada Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo war culus ka soo saaray kulankii madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada dawladda Soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii ka soo yaray madaxweyne Trump ee ku aadanaa in Soomaaliya aysan dawlad ka jirin maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xildhibaan ku soo oogaysa dacwad culus dhacdooyin amni darro oo Muqdisho ay ka nasatay in muddo ah oo dib u soo cusboonaaday hogaamiyaashii shabaab ee dhulka xeebaha xeerow iyo ciise yare oo la dilay iyo dalalka Masar iyo Turkiga oo qarka u saaran dagaal military oo dhaxmara dalalkaasi intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka wararka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada kuma hasanadin aad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janalka wararka haatana aan idinku wareejiyo waryaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa iska diiday codsi uga yimid boqortooyada Sacuudiga gaar ahaan boqorka Sacuudiga boqor Salmaan oo fariin u soo diray madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya kagana dalbaday in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xiriirka u jirto dawladda Turkiga oo saaxiib dawladaha Soomaaliya kana caawisa dhinacyo fara badan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa iska diiday dalabka boqorka Sacuudiga oo ahaa in Soomaaliya ay xarkaha u jirto dawladda Turkiga maadaama boqortooyada Sacuudiga ay dhibsatay tallaabooyinka ay qaadayso dawladda Turkiga tallaabooyinkaasi oo si adag kaga carootay boqortooyada Sacuudiga oo ay ka mid yihiin horumarada ay ciidamada xoogga dalka ay gaarayaan iyo sida dawladda Turkiga ay ula wareegtay dawladda federaalka ee Soomaaliya boqorka Sacuudiga ayaa waxa uu sheegay inuu ka dalbanayo mas'uuliyiinta dawladda in ay sameeyaan dadaal kasta oo ku aadan sidii loo joojin lahaa xiriirka kala dhaxeeya dawladda Turkiga iyo Qatar oo Sacuudiga isku dhaceen sanadkii 2017 markii dawladda yar ee Qatar la go'doomiyay macluumaadkaasi waxyaabaha ka soo kordha wararka kale ayaan ku daawan doontaan qaybta hoosan aragtidaada ku dhiiba qodobkan madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulankii madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhanka kalena qaramada midoobay dhankeeda waxa ay war ka soo saartay isla kulankaasi madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulankii dhanka muuqaalka aalada zoomka ah ku dhaxmaray madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir warkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa ugu horeen lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudoomiyay kulan hordhac u ah shirka amniga qaranka oo ku qabsoomay aalada internetka ayaa madaxweynaha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir uga warbixiyay wada hadaladii Jabuuti uga furmay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland shirkan waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed Qadar madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana lagu heshiiyay in shirkaasi si rasmi ah uu degdeg ugu qabsoomo iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadduna uu go'aamiyay goobta iyo waqtiga shirka u dhacayo madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkeynta wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada taas oo muhiim u ah xaqiijinta idilada shacabka Soomaaliyeed ee dawladnimada iyo dib u soo celinta qarannimadeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana xusay madaxda ka qayb gashay kulanka muhiimadda wada jirka ay in loo tanaasulo danta guud iyadoo la ilaalinayo dawladnimadeena oo shacabka Soomaaliyeed ay geliyeen maal iyo muruqba dhankooda madaxda ka qayb galaysa kulankan ayaa soo bandhigeen sida ay uga go'an tahay in la sii ambaqaado qorshayaasha dawladda dhisida iyo waliba horumarka dalka iyaga oo wada jir u soo dhaweeyay qorshaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku saleysan wada tashiga is ogolaanshaha iyo waliba isku tanaasulka danta guud waa sida lagu yiriyay warkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya dhinaca kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray kulankaasi ee khadka internetka ah ku dhaxmaray madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir qoraal kooban oo lagu daawacay barta Twitterka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay kulankaasi waxa ayna qaramada midoobay madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaasha dawlad goboleedyada ku amaantay qabsoomida kulankaasi iyagoo bogaadiyay in la sii wado kulamada
wadamada noocan oo kale ah ay sheegtay in isla markaana ay taageerayso kulankaasi. qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay soo dhaweynaysaa balyiri kulanka khadka internetka ah ee ku dhaxmaray madaxda dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka. qaramada midoobay waxa ay ku amaanaysaa madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada tallaabada muhiimka ah wada hadalka caadiga ah ee ku saabsan mudnaanta daneeyaasha Soomaaliya ee looga hadlayo arrimaha amniyadda qaranka sida doorashooyinka, amniga iyo dinacafinta ayaana lagu yiri qoraalkan ka soo baxay qaramada midoobay. kulankan ayaana ahaa mid muhiimad gaar ah xambaarsan maadaama iyada oo khilaaf uu jiro haddana uu qabsoomay isla markaasna uu dhaxmaray madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kalena kulankan ayaa waxa uu imaanaya xilli Puntland ee ka biyadiida kulanka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo isla markaasna ay sheegtay uun kaliya inay ka qayb gali doonto kan uu ku dhawaaqay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. haase yeeshee Puntland ayaa qayb ka ahayd kulankii dhanka internetka ku qabsoomay ee dhaxmaray madaxda dowladda federaalka uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxa ay ka hadashay hadalkii madaxweyne Trump. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa u sheegtay BBC-da inaysan wax faala ah ka bixi karin jawaabta ay ka bixinayaan dhaleeceynta madaxweynaha Mareykanka Trump oo Soomaaliya ku tilmaamay dal aysan ka jirin dowlad iyo amni. inkastoo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka uu yahay mid diiran isla markaasna uu sii kordhayo iskaashiga labada dal, haddana waxaa markii ugu horeysay soo baxaya fikradaha xun ee madaxweynaha Mareykanka uu ka qabo dalka Soomaaliya. sida ay aaminsan yihiin khubaro iyo diblomaasiyiin ku xeel dheer arrimaha Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ayaa taageero dhaqaale iyo mid military ka hesha Mareykanka, mana doonayso inay haatan dhaxda ka gasho dagaalka u dhaxeeya Trump iyo Ilhaan Cumar ee sababay in madaxweynaha Mareykanka uu mar walba tusaale xun u soo qaato Soomaaliya isagoo ku xumeynaya Ilhaan Cumar. Trump oo la hadlayay taageerayaal aan badnayn oo iskugu soo baxay ayaa erayo uu ku sifeeyay Soomaaliya ula jeeday Ilhaan Cumar oo ah haweeney ka soo jeeda Soomaaliya oo ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka. wuxuu ka digay in Ilhaan Cumar ay suurtagal tahay in ay ka qayb noqoto maamulka Mareykanka haddii musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga uu ku guuleysto doorashada dhici doonta bisha November. waxay jeclaan lahayd in ay dalkeena ka dhigto sida dalkii ay ka timid oo kale. Soomaaliya dowlad la'aan, amni la'aan, boolis la'aan, waxaa ka jirta foodo un. hadda waxay rabtaa in ay noo sheegto sidii aan dalkeena u maamuli lahayn. maya, waad maasan tahay ayuu yiri Trump xilligii uu ka hadlayay arrinkaas. Trump oo looga bartay hadallo mar walba abuuraya muran ayaa sanadkii 2018 dalal Afrikaana iyo kuwa kale ku tilmaamay kuwa ku daafad ah ama qashin qub, hadalkaasoo carar badan dhaliyay. geesta kalena maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dacwad ku soo oogaysa xildhibaan. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dacwad ay ka gudbinayso xildhibaan Mahad Xasan Ciismaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo maxkamaddu ay sheegtay in ciidamada xoogga dalka uu ka been sheegay. xeer ilaaliyaha maxkamadda qaybta 27aad Maxamed Cabduqaadir Maxamed ayaana sheegay in xildhibaankan oo ciidamada dowladda Soomaaliya ku sheegay in ay ka qayb qaateen dagaal beeleed deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne. waxa uu sheegay xeer ilaaliyaha ku-xigeenka in dacwad ka dhan xildhibaankan ay dhawaan ka gudbi doonaan, sidoo kalena arrintan ay gaarsiin doonaan madaxda sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle. waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay tagtay deegaanadii lagu dagaalamay isla markaasna baaritaano ay sameeyeen aysan jirin ciidamo ka qayb galay dagaalkaas oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. dhacdooyin amni daran ah oo Muqdisho ee ka nasatay muddo ayaa hadda dib u soo cusboonaaday. sanadihii dhawaa magaalada Muqdisho waxa ay dib weyn ku qabtay qaraxyada iyo dilalka ay geystaan kooxda Al-Shabaab, waxaana aad u yaraaday falalka amni daro oo ay geysanayaan burcadda. haase yeeshee toddobaadii dhawaa ayaa waxa dib u soo cusboonaaday dhacdooyin amni daro oo ay geysanayaan kooxo burcad hubeysan ah, kuwaasi oo qaarkood xitaa dilaya qofka ay dhacayaan. Allah u naxariistay Cabduqaadir Cabdullaahi Goosaar oo ah wiil dhalinyaro isla markaasna dhawaan dhameystay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda ayaa lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho saacadii aanu ka soo gudubna. marxuumkan ayaana dilkiisa waxaa ka dambeeyay koox hubeysan oo damacsaneed inay ka dhacaan mootada nooca Veekonta loo yaqaano, kuwaas oo uu ka diiday in uu ku wareejiyo furaha mootada sida ay noo sheegeen dad ku sugnaa goobtii lagu dilay oo ka tirsan degmada Yaaqshid. kaliya Cabduqaadir looma dilin dhaca gaadiidka, haase yeeshee waxaa jira dhowr qof oo kale oo lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho maalmihii tagay, kuwaasi oo la damacsanaa in laga dhaco gaadiid iyo agabyo kale ay wateen.
dhaca gaadiidka ayaana aada ugu soo badanaya muqdisho waxaana habeen iyo maalin magaalada laga diiwaangeliyaa dhaca gaadiidka sidoo kale xaafadaha ayaa dadweynaha loo galaa waxaana looga furtaa moobeelada dahabka kombiyuutarada iyo agabyada kale kooxaha dhaca geysanayo ayaana lagu sheegay inay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda halka warar kalena ay sheegayaan inay yihiin rag hubeysan oo dhar caadi ah wata marmarka qaarna soo xirta dhar ciidan afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana warbaahinta qaar uu sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira isla markaasna ay wax ka qaban doonaan cabashooyinka dadweynaha ka imaanaya ee la xiriira kooxahaasi dhibaatooyinka ka wada qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir horjoogayaashii al-shabaab ee dhulka xeebaha Xerow iyo Ciise Yare ayaa la dilay ciidamada kumaandoosta xooga dalka ee Danab iyo Gorgor oo si wada jira oo howlgalaya ayaa waxay al-shabaab kala wareegeen deegaanada Jilib Marko iyo Gandarshe oo hoos tagaan degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose howlgalkan oo ah mid qorsheysan ayaa saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi waxa ay ku sheegeen in qorshuhu yahay sidii al-shabaab looga saari lahaa dhulka xeebta ee u dhaxeeya deegaanka Jasiira ee duleedka Muqdisho iyo degmada Marka taliyaha guutada 16aad ee Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maarin ayaana warbaahinta ciidanka dowladda afkooda ku hadasha waxa uu sheegay in ciidamadu intii ay howlgalka ku guda jireen ay ku dileen 2 sargaal oo al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada xeebta dhaca ee ciidamadu ay la wareegeen saacadii ugu dambeeyay taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in saraakiisha laga dilay al-shabaab lagu kala magacaabo Xerow iyo Ciise Yare haatan ay ku raadjoogaan sargaal kale oo lagu magacaabo Shucayb Fanax kaas oo kamid ah hogaamiyaasha sharsare ee al-shabaab u qaabilsan dhulka xeebta ciidamada kumaandoosta xooga dalka ee Danab iyo Gorgor ayaa haatan waxa ay deegaanadii ay la wareegeen ka wadaan howlgalo baaritaan ah oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka sida uu sheegay taliyaha ka warbixiyo howlgalkaas ugu dambeyntiina dalalka Masar iyo Turkiga ayaa qarka u saaran dagaal military oo dhaxmara Turkiga ayaa kordhiyay faragelintiisa Liibiya bilii ugu dambeeyay isagoo maraakiib u diray xeebaha diyaarado hub ku geeyay caloosheed u shaqeystayaal iyo diyaarado aan duuliye lahayn dalkaasi geeyay tani waxa ay taageero u tahay dowladda fadhigoodu yahay Tripoli taas oo dagaal sukeeyo kula jirta ciidanka jooga bariga Liibiya laakiin run ahaantii wuxuu qayb ahaan Turkigu daneynayaa inuu door weyn ku yeesho soo saarista tamarta ee badda waxaana ujeedkiisu yahay in uu wiiqo xoogaga ee taageerto Masar jawaab ahaan madaxweynaha Masar oo sabtigii safar ku tagay saldhigga military ayaana muujiyay in laga yaabo in Masar ay faragelin ku sameyso Liibiya colaadda Liibiya waa mid adag balse aaskeedu waa dagaal dahsoon sidoo kale waxay cawaaqib xun ku leedahay gobolka oo dhan oo awoodaha Turkiga Qatar Masar Imaaraadka iyo Ruushkaba ay dhammaan isku yimaadeen Iran Greega Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa si dhow u daawanaya waxa ka socda Liibiya Masar Imaaraadka Sacuudi Carabiya Ruushka iyo in laga yaabo Faransa iyo xitaa Greega waxa ay taageeraan Khalifa Haftar halka Turkiga iyo Qatarna ay taageerayaan xukuumadda Tripoli Turkiga waxa uu diray kumanaan fallaago reer Siiriyaan ah si ay Liibiya ugu dagaalamaan Turkigu waxa uu sidoo kale Liibiya u isticmaalaya meel uu ku tijaabiyo diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn ee hubeysan waxa uuna dhowaan dholotus military la sameeyay Talyaaniga horeyna waxa ay badda iskula dhaceen Faransiiska arintaas oo NATO hadda ay baarayso Masar waxa ay taageeraysaa Khalifa Haftar kaas oo Liibiya uga cararay maamulkii Qadaafi 10 sano ka hor kuna noolaa Mareykanka waxa uu Liibiya ugu soo laabtay si uu hogaamiyo guluf uu ku qabsaday Benghazi iyo sidoo kale bariga dalka waana in la xasuustaa in Liibiya ay khalalaasa gashay markii faragelintii Mareykanka hogaaminayay ee talada looga tuuray Muammar al-Gaddafi sanadkii 2011 Haftar waxa uu Liibiya keeni lahaa nuuc military iyo xukunka ka jira Masar calooshood u shaqeystayaasha gacankuna ay haystaan xukunka Turkiga waxa uu keeni karaa Liibiya xasilooni darada iyo argagixisada uu geeyay Idlib iyo sidoo kale meelo kale uu ku duulay ee waqooyiga Syria hadda madaxweynaha Masar waxa uu muujinayaa in qadcas uu ka jiri karo Liibiya qadkaasi waxa uu dowladda Turkigu taageero kaga soo horjeesanayaan Sirad iyo sidoo kale saldhigga ciidanka istiraatiijiyadda ee ku yaala Jufra wadanku waxa uu kala qaybsami karaa dhaxda Masar waxa ay leedahay ciidan awood leh laakiin waa ciidan aan lagu tijaabin dagaalo dibadda ah Masar waxay argagixiso kula dagaalamaysaa Sinai
muddo sanada welina kama aysan adkaan. Turkigu waxa uu ciidankiisa u diray Syria muddo sanada si ay ula dagaalamaan PKK, laakiin bishii Febraayo ciidanka Turki waxa ay isku dhaceen kuwa Syria waxayna burburiyeen gaadiidkooda dagaalka iyo difaaca hawada. Turkigu waxa uu dhowaan ku duulay waqooyiga Ciraaq wuxuuna ka bilaabay howlgal cusub. ciidanka Turkigu waxa ay gardaro kula macaamileen kuwa badda Faransiiska kuwaas oo la sheegayo inay taageero siinayeen Khalifa Haftar. ciidanka Turkiga iyo kuwa Masaarida aad ay iskugu aadan yihiin, labaduba waxa ay haystaan diyaaradaha dagaalka F-26 iyo boqolaal kale ee diyaaradaha dagaalka. ciidanka Masar waa kuwa sagaalaad ee dunida ugu xooga badan waxa ayna haystaan kumanaan taangi. ciidanka Turkigana waa kuwa 11aad ee dunida, labaduba waxay isticmaalaan hubka reer galbeedka. labada dalba waxa la degay ololaha argagixiso la dirirka ah. Masar waxa ay u dhowdahay Liibiya waxayna si fudud u geyn kartaa guutooyin gaashaaman. Turkigase waa inuu u soo duulaa, waxa uuna door bidaya in uu adeegsado calooshood u shaqaystayaasha Syria. ciidamada dowladda oo Turkigu taageerayo ayaana ku sii siqaya magaalada Sirte iyagoona hore ula wareegay magaalooyin muhiim u ahaa generaalka loo taagwaaye. xukuumadda Ankara ayaana tiri waa in Generaal Haftar uu isaga baxo magaalada Sirte haddii la doonayo in la helo xabad joojin waarta. sida muuqata xukuumadda Turkigu taageerto kama joogsan doonto Sirta. Masarna waxa ay wacd ku martay inay halkaas geen karto ciidan, taas oo dagaal dhaxmara Qaahira iyo Ankara ka dhigaysa mid aad u dhow. guud ahaan daawadayaal wanaga intaa warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan haddii aanagu cusubtaan ugu soo biro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 saac halkan ku baahino. aragtidaada halka hoos noogu reeb muuqaalka share garewana ku mahadsantahay daawashada muuqaalka aad kala socoteen.